قرتل واي وكي هدنا ينولا عرري إثيوبيا وكي ينولا أرضي هرنا وحلو شيء نكاسي إنه كما دبيت عيدا ما إثيوبيا ينوجو كينيو ملك السومالي لا يلاحظه وايهي ورنو شهر قرية بليس سو مدة وقاريتين وركا قضبة قد قلينو وايهي إثيوبيا وكي تجي تاوا كده ركسنتي اللي كنت على الماء ده ما حسن ما كوي يرى يقول هذا حسن لا يا رب تواتور السمعني سيد ويا لبح ان إلو شهر قرية تيرد بانو سيسناي وايهي ان والله يالو إثيوبيا وكي تجي وكي بدي برهبان دينها يا بايلها أنا قرأ حكم كيقولها يقول حكية وايهي إثيوبيا سوماليا والله وده حلي أن هؤلاء بدأ بسعودي وأنا يقولوا حسوكرتي محارب هذول بدون المسير دي سوماليا حسن شيخ محمود واكي هذلي حسن شيخ محمود سدد بنبر وقشة كسناي ليا بتاعن ورسولوا بليوني سو هذا رسلا هجراء وربلسولوا بجاي اليوم هاي سكنا دي لا شيء ساسم كويه يوان يابناي تعتبوا ما كم غنا سولوا هذا يرجع قرية لحدينا بقول لحدينا بقول إن أودايغان اللي يراهدو موسى هرتا كرسيغان ميلو كما صعدو دادو ميلي كا قرا بلايا واتي لغا قادا حرمانتا اوداياشي هبر جيلو ee la kulmay mise shalay galigi dambe la kulmeen wuxuu yiri sanad muddo kordhina baan rabaa si aan doorashooyin u diyaar gareeyo miyaa la idin sheegay qodobka shalay wuxuu odayaashii habar jecel ku yiri xitaa intaana wararka kale idin bilaabin sanad muddo kordhina baan doonaya nin meel u socda balaayo waati laga qaada sanadka marka la siiyo waxa weeye intuu informationada diyaarsanayo haduu laba bilood inagu dhaafo ilaaha baan ku dhaartay inaan cid la cid ka rogaysa iyo Somaliland dambo laga waramaya balaayo waati laga qaada waa lagu kala dareeraya heer waliba meeshiisa caalam buu samaysanaya kii buluuga ana waa keenaya waayahay aan ku soo dhawaado wararkan meesha u soo galay horta toddobaadkan gudihiisa saddexda gobol ee ugu waaweyn Somaliland awdal iyo togdheer iyo hargeysa intaba ciidan Ethiopian buu soo gelinaya waa sida wararka boqolkiiba 70 ka soo gaaraya ee dhegdheeri la wadaagayo ee luuqa yaala naloo soo sheegayo biliis naga sheergareeyay 8 boqolba إذا عدنا سوف لو قرية وإذا عدنا فلو قرية وياه إن أضيقني دلك يسقط دنك ملها ومد دنك ملها بلايا واتلقى غالا يسقط وحاودرا سند عمل لبا أيو دمان دلك كحراشيا سند عمل لبا وسيداني دي شيء معاه الدباعة وعصب عاوة محاني جاي غيلسي عصب أنا دين تابتو إن إثيوبيا إذا ما دي ويصودا إثيوبيا قد هذا وحكيت لك عدونا ده وقو خطر تبدنا إثيوبيا إذا قد هذا هؤلاء إذا قد هذا كتير واندين جليا وإحنا وقتي وإحنا يدارجين وياهي موسى يسقو شلي وانجي دكوري وذاك مع السليمان لا يراهدو iyo Faysal Ali Waraabe iyo rag noocana iyo hebel adigu dad noocana waa la kaxaynaya jigjiga la geynaya ama waxa la qasbaya la tijaabinaya hadii taa xitaa laga shaqeeyo waayo informationku daqiiqad kasta wuu isbedelaya anagu daqiiqad kasta halkay taagan tahay inaanu idin la wadaagnaa baan xaq u leenahay waayahay in Faysal waa laga hadlay arrintan shalayto odayga Saleeman waa laga hadlay ilaa faratoon arrintan uu dareensan yahay dhammaan arrimahan Ethiopia way socdaan ma aha in laga baxay waayahay oo hawshii dantay markaynu inagu aamusnay ma aha in hawshii dantay waayahay waxa jira laba nin oo samaroona oo magac waaweyn leh oo iyaga reer awdal loo dirayo reer awdal waxa jira jabhada iminka gudaha jooga oo Ciise iyale iyo samaroon leh oo gudaha jooga baa jira oo hubsita laakiin inaga aan inoo muuqan waayahay oo saylac iyo lughayo arrinta ka gadoodsan waayahay waxba lama weydiin waa dadka caruurtoodii iyo dhulkoodii iyo mustaqbalkoodii rabo inuu Muuse muddo ku doonto isagoo 85 ama 90 maraya dhulkana uu Ethiopian gacanta u geliyo isaga 2 sano ama 3 sano ama 5 sano uu sii noolaado oo kursiga lagu hayaa u daran
waayahay maxay yihiin wararkan idiin sidaa war inoo sheergareeya biliis sidaa caddana soo falow gareeya waayahay in ciidamadii Itoobiya ee soo gali lahaa gobolada Somaliland warka 80% soo gaaraya wuxuu sheegayaa inay diyaar yihiin diyaar yihiin anagu ma jeclin ciidamada mana ogolin meel adayna waanu ka taaganahay waayo Itoobiya dalbay leedahay annana dalbaanu leenahay haddaba maxaanu uga jeednaa inaanu idinku qayrino idiin sheegno waxaanu jecelahay inaa ka diyaar garowdaan arrimahan oo aan la idiin qarin Muuse Biixi laba sababoodba ciidanka Itoobiyaanka uu rabaa badiyo barigana waa xaraashaya kow reerka la yiraahdo dhulbahante ama reer Sool wala barkow waa sababta ciidanka Itoobiyaanka loo soo kaxaysanayo Sool ciidan baa buuhoodle xagga Itoobiya ka soo galaya oo ka soo horeynaya kuwa Soomaaliland kale soo galaya wuxuu yiri la barkow Sool ila qabta Itoobiya horta wuxuu yiri badiyo bari baan idin haya saldhig iyo bad inta baan idin haya laba markuu inta yiri wuxuu yiri laba arrimood aniga ay qabta inaad ciidamaysiiso aan mucaaradka gudahayga jooga kula dagaalamo aan kursiga ku haysto laba gobolka Sool la yiraahdo ee Laascaanood xaruntiisu tahay maleeshiyadu argagixiso isagu ku sheegay ayaa qabsaday yiri ciidamadaas ciidamo halaysiyo aan argagixisada kaga safeeyo halka reer Laascaanood waxaanu leenahay arrimaha ka diyaar garooba annagu daris baynu nahay Itoobiyaan idin la dagaalamaya raalli kama noqon karno edeb darrooyin la idin soo kacaysanay raalli kama noqon karno waa edeb darro laakiin arrimahaasi yaana idin dhuuman waayahay waxaan idin sheegayaa haddaba ciidamadii maxaan idinku yiri inuu yiri kursiga igu haya mucaaradka gudaha joogana ciidan aan kula dagaalamo waa in ay siisaan gobolka Sool oo dad argagixiso ugu yeeray uu yiri way iga haystaana oo way noo soo fadhiisteen amniga halis ku yiina ayuu yiri ciidamaysi aan Sool ku qabto Laascaanood oo argagixiso iga qabsatay reer Laascaanood kii deganaa iyo dhulbahanto magaalada iyagu leh ayuu argagixiso inoogu sheegaya la inaga gadaya waayahay reer Laascaanood waxa leeyahay arinta ka diyaar garooba buuhoodlay ka soo galayaan ciidankaasi sida 70% la sheegayo بدواني la waayi karaa ilaa anigu cilmi qayb ma yihi wixii jira baan idin la wadaagaya laakiin waxaan jecelahay 80% in dadku taagnaadaan oo loo diyaar garoobo waxyaabahan waayahay ilo sheer gareeya bilis ilo sheer gareeya idaacadu waxa qodirir inagu dulmiyo dhan baynu la dagaalamayna waayahay taasi waa halka reer Laascaanood waxaan leeyahay ciidamada Somaliland gudaheeda soo galaya iyo kuwa Laascaanood soo galaya ee Khaatumo soo galaya waxa loo badinayaa inay kuwa Khaatumo soo galaya soo horeynayaan oo ay halka buuhoodle ka soo galayaan ayaa loo badinayaa oo diyaar garooba adeeru diyaar garooba waayahay kuwa kale soo horeeyana way dhici kartaa wuxuu yiri dhammaan gobolada waaweyn ee Somaliland ciidamada dhigo Itoobiyaan aan u baahanahay ciidamada Itoobiyaanka gudaha uu soo galay muxuu ku falayaa wuxuu yiri mucaarad baan kula dagaalamaya kabahayga taagan wuxuu yiri kursigan doonaya inay igu haysan wuxuu yiri mucaaradku idin ma ogolo bad iyo dhul toona wuxuu yiri anigu waa idin ogolay bad iyo bariba waa inay siisan ciidamada Itoobiyaan oo aan kula dagaalamo dadkan gudaha oo qofkii hadlaba ii toogto ii qabta oo gudaha soo gala waayahay ciidamadaasi 70% way soo beegan yihiin warkan la soo gaariya wuxuu sheegayaa inaanay xitaa golayaasha Somaliland iyo inta laga doodayo iyo inta la wadwado aan la sugaynin ee ciidamadu ay iyagu soo beegan yihiin xalay wuxuu magacaabay 8 xubnood oo uu guddi inoogu sheegay farsamo hawshiisii isagu waa wataa waayahay
ciidamada Itoobiya way soo beegan yihiin boqolkiiba 70 warkan soo gaaraya koobi yacba farmeesha kuna way isbedeli karaa anaga sayla waa naga ogiyay waa sida soo gaaraysa waayo idaacadayada been loogama baran laakiin haday balaaba isbedesho walaalayaal de bilaadan baarnay waxba naga saarina waana isbedeli kartaa farsamooyinka markay boqol waxaanu idin sheegnay ba fashilmo daaqada laga saar waayo anagu madaxtooyada nuu hoyanaa garoonka diyaaradaha nuu hoyanaa mid kasta dhaqaalaanu ku bixinaa waxaanu idin soo gudbinayno waayo waraanu ciyaar ku helaynaa ma jiro warkii waa inaad lacag ku bixisaa luuqyada kala socotaa dadka oo dabadna warkii lagu soo gudbiyay xogtii ugu dambeysay si aad u ogaato oday Muuse wuxuu maanta ku karinayay gurigeenu Morgan Keerim oday Morgan de ka saarnay waxa inoo ka saarnay garan maayi mid ka sii xun baaba inoo soo galay oo qolo inoogu dhuumanayay waayahay ciidamadaas qalbiga ku haya nin walowba taa halkaas aan dhigaya dadka reer Soomaaliland maxaa loo sheegaya hal qodob baa la idin karkarinaya oo socda oo aanu dhowr jeer idin sheegnay Soomaaliya waa cadawgeena Soomaaliya waa cadawgeena Soomaaliya waa cadawgeena wali wayna daba socdaan 80kii miyaad joogin sayinoo galeen sayinoo duqeeyeen 80kii waa cadaawad ku salaysan ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda waa kaar kan baa la xoqaya oo la laabaya oo la leeyahay siyaad barro 30 sano ka hor dhintay oo hilbihiisa dhamaadeen ayaan la dilay annaga ma gamcahaana laabnaa oo anagu wax maanu dilayn miya anagu dad la diliyun baanu nahay miya waxba maanu dilayn waa ilmi yaxaas baa la yiraahdaa dadka shacabka ah ee masaakiinta ah waxa xadiis iyo diin looga dhigaya oo lagu celcelinaya Soomaaliya waa cadawgeena wali wayna daba socdaan waa tan hawadii la karkarinayo hawada aan qodob idinka siiyo labo hawa la soo wareegay ma jirto waxay ka dhex qaylinayaan raadaalkii dawladda Soomaaliya gacanta ku haysay ayay ka dhex qaaqlaynayaan qaaqo khalkhalka joog wax noocaas weeye waxay soo gaarayaan laakiin hawa la soo wareegay ma jirto waa been weey waayahay awsha hawada haday la soo wareegayaan hadii kale anagu Soomaaliya baan u aragnaa gaaba waayo intiraaf maanu haysan baasaboorkii Soomaaliya inanka adeerka waxa Hargeysa ku miisaya burca lagu miisaya sabab aanu dhaw kale laba dawladood ma garanayo waayo sanad ka hor baan burca ka soo qaad Hargeysana inankayga yar uga soo qaad marka oo in adeerkii rumi miisayo isagu u xira marka sabab aanu dhaw laba dawladood anigu de ma garanayo nin baasaboorkii Soomaaliya ku miisaya Hargeysa oo inankiisa adeerka iyo qabyaaladu ugu xiray oo haddana aniga Soomaaliya waa cadow iga iibinaya anigu madaayeer baana waayahay dadkii waxa laga iibinaya oo loo xoqaya Soomaaliya waa cadow Soomaaliya waa cadawgeena heshiiskeena ka xuntaay badeena ka xuntaay waxa ma saxiixi kartaan bayleeyin reer Soomaaliland qodobka laga gadaya waa qodobka waana lagu disaya sida xadiiska waana laba doona maalin dhow TV-yada la socdo isha ku haya waa ilmi yaxaas baa la yiraahdaa war inoo sheergareeyo bilis waayahay reer Soomaaliland qodobkaas Allah yeel ugu dhahdo ummadda Soomaaliyeed waa cadow Soomaaliya waa cadow inaan wax saxiixna ma ogola inaan heshiis gal ma ogola badeyn iyo wixii inagu haystaan waka kaarkaas loo hayaa leeyahay siyaad baraayna dilay soo dhawo wareeg xajis baawar soo dhawaada dhamaantii munir warwayd salaamay dhamaantii waa idin taaganay rag iyo hablaba dadka Soomaaliland jooga ama gobolada waqooyi dadba saado taqaan Hargeysa iyo Burco iyo Booram iyo dhulkaas oo dhan halka kaar baa loo hayaa in lagu dhaho Soomaaliya waa cadow Soomaaliya waa cadawgeena Soomaaliya waa cadawgeena ya صوت مرتاح دور سوق ويلكم أول بقول قبل أنا كوي من يسوع حسلو بقول أوصل إن كل صعدو تذكر هي Somaliland عداوة بالوكا كرنا يا Soomaaliya سيتوبيا لوجو ديبو نبي مال وحي لهاين نبي مال وحي لهاين إن إثيوبيا لو ديبو وحلو ديبو يا عداوة Soomaaliya ويا وحلقة يا مشي ككلي وين دبنا مشي كإثيوبيا لقوصو حرية si odagu isaga fadhiyo oo ciidamada u helo dabadna waa in cadaawada Soomaaliya la soo nooleeyaa baraleeyna dilay walayna duqeeyay hawadeena inagu haystaan ka warano Soomaaliya waa cadawgeena si information ka kale lagaaga iibiyo oo gudaha u soo galo
كوبي يعب وحن واقر شيال صعدة تقليد بالله يرحضه وياهي إن دبا اللي أبابله يتيفيه ذاك قيلين دونا حتى اللي أبابله يتيفيه ذاك قيليا وعداوة سوماليا دون يجينا إن تكون آخر كودن بيا أورانا يا سوماليا أنا إثيوبيا أنا ولا لا هيو وهذا ندرس نهاي ولا لا هيا أنا بريكو قبرني واسدن إثيوبيا بركة جبهة ويريسي حلا رين بيلاهي إلى حدود أمة الصوماليات بالبوليسية لهاي تينا ويكو جوليستي واحد قالوا يسقوا كايه هري مشيرو أنا نحلو جدان الرئيسيات برانو كقدو منين كجوليسنا نيتي سبب أنو قصيرك سنة أنا مشيتو وده ندرس ناي نجا يبلا لكن الرب دي بري بيلها نودين هينا أنا كرسي يقو هينا إنسان أمة دي تعيش كوهيا هل كان غضب كاسان كتير إن دير سومالي لنا عداوات باللوكر كرين دونا وحليني كيبنا يا سوماليا وعدو هودينا ينقو هايستان وحنبينا قو هايستان وعدو وين كورن إلى يدير وين دبت شوغان ولي وين يرينيان قفك حلو حلوان يميت سيدتك يشوغين يا حقوجري بلا ديكسن إذا هو سياد بالرصد سنة كهردين طيب سيدي أنك جمعونا لابناين أنك وأنا وحبدين دل الدلونا نوهين تد مساكين وعنباهنا نوهين أيون نقدر يوم ما تأول اللين أيون سونك يبحني شباب تسمي سنة قلامي يميلوا يبور كستبا قال لي أنا بدك على ناس راكيش يتذكر أنت وقو بنيد لي ملبي على سوديسي سبب نوسي ويروسي المينا مجرتو قلب قال كذا كذا في يتذكر سوماليا وحلقة يبين دونا سوماليا وعد وجيني قلب كلامات إثيوبيا قعنت اللي قلين دونا كوبي عبا عيد ولا يبان ملكو قرو موسى بيحي شلي وحيري شلي وحيري وحبرش على كويدو ذا ياشيده قالين كيدن بي وسدو مشاء ولا كل مي وحاويري سنة دي كردية ورسولو خضر علو ورسولو محمدو ورسولو هذا دمانتي ورسولو انتصار سولو ونادر ورشار قرية بليس ومدى الصومالية ديقا شار قرية ورحباي يقول سوى كان ورقا شار قرية وايهي شلي وحكولي وضياشا هبرش علو وحن دونا يا سند مدى كردنا وسند كويتوبيان كانوا ما يستريو سلقيادو دكينيو هوشي سقبسنيو سوماليا عدو ينوغو شيغيو سدك سوماليا عدو ينوغو شيغيو ايد لا يمانتا ينو ilmayna loo rabo inaynu wali ooyna loo rabo siyaad barrosadan sana ka hor dhintay inuuga dabo ooyna loo rabo saanu anagu maata ahayn gamcuuna laabnaayeen waa khanaayada inta la bisleynayo way la abaabilayo inuu degana waa habeenkii xalay tagay inuu dego inuu si nabada ku dego noolahan arkaya waa habeenkii xalay tagay beesha habar jeclo fariin baan u dirayaa waxa la wariyaanahay dul idinku filan baa haysataan maamul goboleed soomada Soomaaliyeed hoos tagaya diyaarsada qodobka labaad beesha garxajis baan u dirayaa in maamul goboleed idinku filan waa haysataan diyaarsada heer khaatumana waxa leeyahay maamul goboleedkiina ku faraaday oo Soomaaliya hoos taga hal qodob baan soo filayaa waxba igu leh Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuse arrinta way ku wada socdaan in badan shaki waan ka muujiyay arrinta xog rasmi ah in la wadaagana ma hayo in sawaan ka shakisanahay qodobka way Xasan gudhiisu waa oday aan daahirin ma daahiro oo aan wax qorshayaal u yaala jiray una masaajidada u dhex taagan mar diyaarad saaran oo wada busto oo miskiin waa nin iyo si u yarana hada ay ugu qubin wariga sheergareeyay bilis waa ka shakisanahay ninkaas inuu ninka badiyo bariga iibiyay uu yahay horena waxaan ku sheegay saxiixa uu Muuse la tagay Itoobiya ila Xasan Sheekh Maxamuud laha tiisawidin ma wada cadaan yadaan ciidii sheegay mardi ku yiri saxiixa uu Muuse la tagay Itoobiya Xasan Sheekh Maxamuud balaha ee Djibouti lagu kala saxday muxuu soo sheegay wuxuu sheegay inay shirkado iyo wacdi la galayaan heshiisyo Soomaaliland lagu imanaya sidii DB Wall oo kale Xasan Sheekh Maxamuud darbada burkaba bahal kama eegin isagoo haduu doono isagu siin lahaa burkaba bahal kama eegin ismu oran haduu diyaarad raacay isagu wareejinayaaba anigu se boqolkiiba 60 waxaan aaminsanahay in Xasan Sheekh Maxamuud ma daahiro waxaan aaminsanahay inuu hawshan isagu raali ka yahay wixii sana qaatay waayo ummadani hor fadhida ma aha ummad aynu
ummad ma aha ummad Soomaaliyeed waa ummad la inagu dhex darsaday waa ummad la inagu dhex darsaday wariga sheer gareeya waayahay yaan ku daali saxiixa uu meesha la tagay kii xasan sheekh maxamuud baa laakiin darbada wuxuu u sheegay taawaan huba markii uu horeysay saxiixa uu meesha la tagay wuxuu ahaa saxiixii xasan sheekh maxamuud waa sidaan hore idin ku sheegay wax iga soo noqday ma jireen waayo waxaan hubaan idin la soo hor fadhiistaa boqolkiiba 80 wararkaygu way badaxlaayin te waayo way iga dareeraysan waxaan war waa kii beenay waa iska qaylada badnaa warnaga tag ayay koonayaan xitaa anu qodobka la oranayaan garanaya war waa kii qaylin jiray kaadibka kaliya lagu oranaya نبنانا صاحبنا أيام كويلين ورنا هذا اليقام باتم حالي عادي نوقش دويد وميلها قربات شوقة مركز يقولين هذا ما نبان ميل تيك توك اللي بسوي له قالوا الكي رد عليه ربان ليه يقول أذو هالكي الكولو وذاكو أيام بيد الكي أقو جاوين يد وحيري الكي رد عليه ربو سوي له تاجم بان له مركبه وينام بايس قرطي بيد حكى لي بالي الكادر لي كليه لي والله أنا مين ديجي وانا المذاحة هذا ذا داوني يخرج بالك شنو الكوجة كليه وبحول قلبي يجي بيسوي مركب وحيوتي محكى لي بال بعد كان لي بالي الكادري إنهم بيسوي قرطي بيقول حارانا وحيلي قرال كذي بالله ميدو ودنا اللي قعدي وحنركي قرال كذي وكسر ما يبتي وحيان كهذي كريم كده ما وندي تقري وأنك يقولوا وروحنا عيل لقوا عاية ميانا كدبين سائر الله إله إلا الله أنا عايله وقفانا أبيك اللي عايو مصيح هذا وانكويري بركة وحشية إن حتى أنا قلبك اللي يقولنا يا هدام بين شيء وبقول كي بس ديتنا نور بين عمل تدبات نور بين عمل لحنا نديك نور بينا وبقول كي بكتر هدي ورك يقول بين نقضو بركة وحلوني وروح كي غير بدنا بين ويسكا ورنا دافي والله ما قمت بكل جيسرين هدي صدح ور أو كلا دنبيا أو كلا نوع أو اللي هاي بين نقضان وياهي إن أكو صعدو خير أو دل بين قضى بسيله هرت غير خاتمه وحليه ولا ليال ديار قروبة خيركم وحبكم أيهرو الشركة وتوجهي بالي خير سومالي لانك حلاشة وحليه ولا ليال ديار قروبة كرحكس حبرتشالو عرب ومذاكري أيوب تلشعلي عبراشي هشاع لما أنت واحد ليه ديار قروبة إيا باشا سمروز سعيد إيا باشا عيسي إيا قبوية وحي عقا كوشيتان يوم الديوان يوم مسديري وركا كعبان لي يوم مديقان با إن إلو شرقري إبليس حبرتشالو وحليه هاي وليد المورن ورمامل قوليت صوماليات سميستا ورودغاني ميلو ما سocdo ورودغاني نفدين ما hayo war wallahi habar jeclay billahi ya tallahi inuu idin dhameeyo rajaynaya war wallahi habar jeclay Muuse ciil buu idin qaba ilaaha baan ku dhaartay idinka nafududaya Muuse ciil buu idin qaba ama garta ama ha garanina habar jeclay waxa uu sheegaya war maamul goboleed samaysta oo ilaahay uu siciid noqda badina xiis iyo shalcaw iyo eel gardi inta wata doontaan dekad balaaran ka dilaaciya badiye bariba waa heleysaan war sababa u duleysnaataan ma jirto sababa la saanood iyo hargeysaba ugu xidhnaataan ma jirto war caasimad samaysta gobolka Saraare ee khaaska u leedin caasimad ka samaysta ee aynaba xaruntiisa aynaba warna caasnimo yaana idin qaadi way beesha garxajisna waxaan leeyahay balaaran ee ugu miisaanka culus gobolladan ka yimi ilaa la isma caasiyo oo la isma xaqiree wala la yeel diyaar garooba waxa Itoobiyaan iyo dhirta dhagaxa loo jiiraya garxajisow boqolkiiba 80 permission kan waa idinka doorashadiina lagaga hortagaya mucaaradiina lagaga hortagaya kursiga la idinkaga ilaalinaya Itoobiyaan ba jeegaysa Ugandis baa la idin soo karaysanaya halka waa tala maraysa ninkii aynu dooranay ee fashila ee kala barka soo cararay ee hawadii laga faramaroojiyay ee ciidankii ka soo orday ee saanadii ka soo orday waa ta halka la maraysa inuu badiyo bariga Itoobiya iga qabo yiraahdo anigana kursigu ugu yarahayo iga ilaaliya garxajiis iyo mucaaradka iga ilaaliya wallahi billahi oo tallahi cid waxa loo soo karaysanaya waa beesha garxajiis ee majority-ga ilaahay baa ka dhigay maanaga ka dhignay garxajiis waxaan leeyahay iyo ummadda mucaaradka ah oo dhan odayga inuu dooranay
مسكين كاها يرى وحوين لسي سعدا ميل خطر بدن هدينا ندقدق وقطورين ورلبدا قولوا وحنفريا قولها قورتي ده سومالي لان إيا قولها بوكيلا ده سومالي لان ورلبني سيدقدق ينور دافيا لمبركو odayga Saleebaan labada odayga Saleebaan inaga dhaafiya odayga Saleebaan war wallahi oo billahi oo tallahi jiritaanka iyo ummadaas oo khatar ku yahay odayga dhamaan inoo garab goroyeynaya ee saa u leefaya ee hargeysa seexan maysid lagu leeyahay isagoo cimriga jooga ee sida tooska ula safan ee dulmiga noocaas isagoo 90 maraya ka shaqeynaya leberko waa odayga Saleebaan aniga iyo adeerka odayga inaga hurdageeya odayga xukunka laga tuuro sida ugu dhaxsaa badan odayga markaynu meesha dhaafino Muuse uu qalalaya oo istaagaya hadii weeray soo celiyo isagana laga fadhiisto laga tuuro war Soomaaliland khatar bay ku jirtaa warbad iyo bari wuxuu siisanaya 3 sanadood oo muddo kordhina oo kursiga Itoobiya tiraado anaga kugu haynayna ayuu igu wallahi igu billahi igu tallahi bad iyo bari dad iyo dunyo uu siisanaya سيسينه أما قرأ أما هقرن أما قبائل كل صفنو أما عولو أما واحد كلا كورن أما دورش أساس عطردي ورنيك أنا وحال وحنا هيا إنك كورسك على قطورو هذا وأنك هاي بقول كيف السجاشن ومدن قبل ذا كجاي من ملها هذا وكلام لقوت الماما يوتشين ومدن الصومالية هذا وقال لقوش يا ولا لهن صوماليا اللي يسكو كانوا رنشري meelaynu ku kala goonay ma jirto mucaarad baynu saahay yaan been leedii sheegin siyaad baraan la dilay siyaad baraan basada sanadood bay siiyay anigoo nin aha oo jabhad samaystay oo dagaalamay oo dawladii dibadna dhintay oo ninkii haystay dhintay oo 3 sano dhintay oo wax qabad ka dambeeyaba aanan arag war sababaanu siiyay ma jirto war gari Allah taqaanay sababaanu ooyaa ma jirto war iga sheergareeyay bilis waayahay waxaan idin sheegaya golayaasha Soomaaliland waxa leeyahay ninkaasi aakhiri adduun waa halaagina dhex taagan odayga inoo garab goroyeynayay 9 jirkii adeerka ee Saleebaan ka markaa meesha dhaafisaan Muuse dhangadii u horeysa taabsiisay haduu juuq soo celiyo isagana waa in laga tuuraa haduu bil muddo kordhina oo dambe helo والله او بالله او تالله بانو نرشي كدغينين وو inoogu dul dhimanaya meel uu socdaana balaayo waati laga qaada waa ka maanta iska dhigaya mid Samaroon Siciid jecel ee la xusbi baan la rabaa Samaroon haduu jecel yahay kulmiyaha siiyo odayga dheer ee daba taagan adeerkii baa shalay ka dago siilaanyaha oo reerkaasi waa fulid isagana beeshiisana isaga soo maray oo waa kan maanta fadhiya baabar jecladii kalena kuma haysato ka hawadatayo urur bay samaysatay kale xajisna waa ka wadani wata cid ku haysataa ma jirto Samaroon Siciid kulmiyaha ku wareejiyo musharax iyo gudoomiyaha waa dhisayna ummadda reer Soomaaliland bay baryayaan oranayaan walaalayaal codka nasiya eego wallahi wala siinaya codka cid laga jecel yahay ma jirto anigu goboladan ka imi waayay laakiin ilmayaxaas urur Allah xiro يا ماذا سمروا وحلا جعل شسر نذود بكبريين دستور كنوفر شسر نذود أي كبريين دستور كنوفر نو أبكي وكي تاجي إلى السؤال يدو كلا بركة صعرة وريا سامي كشيف شوفدي سوهاي سطو بيشة ويسقو يعمر كيساق لقطعو سامي كأنك ملتري كأنك قدومية محكمة قال يقولن كي يقول أذا وين هذا يستقع ماليدي بقول كي بتطبعات أنا قاعد سمعي شو ودنك بقول كي باللحن وحي مشاريع ضمان ودنك واركا سمرون وان بيشة دحكة السنين يا بيشة يرى يساق كم ذا يسوي يعي إلهي بارد كل شيء بقول كي بس ديتا وحسامي بدن سامي وقالي كيسا كوغري نيكا ما تسكدك ينو سمرون شعري هاي وحسامي بدن بيشي سير ايسا قدها وقسي جرتا بسودان كل سمرون بار حسب الله ربا ورماذا الله ربا كل مياسي مشرحي قدومية وذاك ديراد ميشا وضوضية هذيك تونا عيدكم الربطي إذا كنا وضيال حسب النقطة نغالانا كبحي سيدي الله قولي سي أوديس وانو ديسينا نقول الله نقول بالله نقول الله وانو ديسينا سمرون سعيد
وهدي عيرون تاي تبارنا والله إن المركجين بالله إن المركجين تالله إن المركجين السياسة دي بهالك كشيء علي حامد جبريل باكل ورياه سياسة ما أنت نسوق شيء محيط إيش السنة دود بنو كبرين وردستور كنوفري سياسة نسوق شيء محيط هاي سامي غير كلية عاصيسي إيه سمرون بيش الحاهي وحاسيسي السويق ورياه مدحوين وردت كذي